بسرعة إني ولالكي يبيل كلين توقف كدراتا وغاني إني سؤال أنا كعبسنا بدن واقعيا سيلك ماشي قبصدين سيلك حتى والمسوجي شريف قاس وين قروقيسي أنا ولالكي muno markan waxay halkan la fadhiisaa walwal cabsi iyo warka u soo laaban doono kadib habeenkii labaad oo caawa Saciid aysan nolol ku haynin wiil yar oo 10 jir ah oo qoyskan ay dhaleen ayaa xalay lagu afduubtay xaafad kamida degmada Hodan oo lagu magacaabo jaamacadaha tani waa qayb kamida dhibaatooyinka soo laabtay ee ka jira waayihii dambe Muqdisho muna hadda waxay ka fikiraysaa waxa dhici karo iyo warka soo yeeri doono maadaama wiilkooda uu afduubteen kooxa ku libisan dariiska ciidamada dawladda iyo baabuur aan lahayn target taasi oo loo yaqaan baabuurta saarifka shacabka lagu dhibaateenayo in wax laga qabto ilmaha saqiirada oo daryeelka u baahan maalin ka hor ilmo yar oo lagu afduubanaya gaadiidka bajaajka ayay iska soo tuurtay taasi oo sabab u noqotay in dadka deegaanka ay ku soo baxaan magacayga Muxudiin Maxamed xalay shalay maqribkii waxa labatay walaalkeygii sanadkiis waa 10 jir fanaano wuxuu watay girgir kafee iyo madow isku jiro iswaal guduud ah oo sportis oo watay balam laamigan oo meeshan oo waxa ay tahay siliga jaamacad horteedii laga wato asi wiilka loo yiriis ah isla taagnaayeen dhahay meesha ku ciyaarayeen labadooda meesha lagu wato yaa wata Allah marka hadii ay xogti daba gasho aad waxa wata la dhahay mid ciidan oo soo degtay oo dharkan ciidanka wato iyo labo kale inta fanaan maaliyad ay wataan oo ciyaartooy ay wataan saddexdaas asla wada la dhahay ma caadi u wataan marka mise gaari iyo waxay saarteen gaari ay saarteen gaari oo cadaan oo waxay saarteen oo magaciisa si oo la sheegay gaariga magaciisa ay maqan gaari saarif saarif ayaa la saartay oo taariga la'aan soo sheegan dadka naaga oo jaadolayaalka dhan iyo wixii meesha joogeen oo isla qayleen dhan taariga la'aan way dheen waa gartay cunuga marka dad eheladiisa oo maqan ama raadinay oo baadigob ugu jiro ma jiray cunuga kala maya midka anila dhashtay ana raadinaybo maya qof ehelkiisa kala ama hooyada iyo aabaha kala khilaaf u dhaxeeyo kala hooyada ee wadanayso kala waxyaabo laga cabsi qabay maya hooyada way dhimatay aabaheygina ma joogin hooyada way dhimatay aabahe ma joogo meeshan wuxuu ka shaqeystaa oo tabeela meesha ka shaqeystaa waardiyo ka yahay ma joogin anahay ilmaheeni waa gartay illa saakidaaniti waa gartay cunuga kale la wato qoyskiisa ma aqaan cunug kale inta tabeela ay kor ka imaado waa la dhahay cunugaas dadkiisna meel ma ku ogna anaga maxaa codsanaysaa la walaalkii walaalahayga Soomaaliyeed mis madaxweynaha mis walaalka hadda cunugaas afduubta agoon way hooyadiis waa dhimatay waxaan ka codsanaa sida naxariista badan inay noogu soo celiyaan waa u dhibanaa xal ma seexanin waxaan ka imaaday tireedisho walaalahay hadda waa maqan yihiin say wada dhan yihiin oo wada baxeen meel hadda lagu tilmaamo loo raacana malaha intii islaamada maxamed waxaan ka codsanaa ilmahaas in la raadiyo oo gacanta la soo geliyo idinka raali 140 ku dhaale